إن لا دلقاته وأنا دلقاته إن دولة السجون وان سجني إن دولة السجون وان سجني لبعتن إما أنت يعني هدي بدك ليه رجع حناية الحكومة دول وان سجني وحنا نسجني إنه العالم النظام كيدول النمذا يشريتان قرني مدينة وما سمرين أيوه إنه يديارو تاعي أنت هذا بين بينوشيت أنت هذا بين بينوشيت والله ذا فديين رجع هالك فديه وذ فديه بين بكشيت وحن أمرين يا إن لا هاو ديسك هاي عليا وردول لا يسكو بس يرد دول كني كواه يستين يرد لا يسكو سيا دول يرد لا يسكو بس يدي لا يسكو بس دول يرد دول لا يسكو بس يو كامبين سياسة لا يسكو بس يو كامبين دول ما قال عذير دول ما قال كامبين يردنا ما قالوا تاكا دولدو يسكو دلان تاكو سومالي لانو كدر اكسنتيشن يلا باطن كاسرو نين اي wax ku seegayin madaxweyne Siiraayaha inuu la hadlaynayo ummadda inuu la hadlaynayo dhaho nin wax ku seegayin ma jirto waa la inoo bareeray dhulkana waa la qaybsanaya waxa hadalkay soo gabagabeynaya way naga go'an tahay wallahi hadii salaadiin iyo siyaasiyiin waxa xidhan uqaal baa la leeyahay hadii dhig ku daadan hadii nafa ku go'ayaan hadii Soomaaliland ku burburaysa inaan aqbalin waxaanu faraynaa inuu xukuumadda leenahay la dhigi maayo sanaaduuq lagana codayn maayo diiwaangelina laga sameyn maayo goobaha mana dhacayso taasi dhigi mayso waanu ka soo horjeedaan dhici mayso wallahi inaanay sacad musile dhul habara leedahay inaanay diiwaangelin ka dhacay cashuuraanu bixinaynaa laga bilaabo maalinka maantaana inaanay jirin cashuur aanu bixinaynaa inaanay jirin haddii biduuni shuruud dhulka iyaga faraha looga qaadi waayo رجع حنا أبناء ونسيدي وايو بدون ظلم بالوايست والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت إنه يسقون منا تي عن عذر يحماني كتيرنا الله ينقبل تي وناجي يطلع ما يتوفق كتيرنا الله ينقبل ذلك يدك يدين تبا أن وهو نكسر كتلي الله ينقبل تنتو ذلك يدك بواحد كتيرنا نبت قليدو أدلو إلى اليوم هذين نبت قدر لإلالي وايو أي وحكاق اللعدان وحي نسو مري ومديا وين كور هينا دباتدي نسو قالي وين كور هينا شاركينا وين أركينا وحكا الصعودة دباتوين كالصعودة وين أركينا هذين لإلالي وايو تي بين نقول إساء دولكنا والله كلا يقانا درهر واللي بمير بإلهي كوابوري فير ما أنتو وحكما قادي كرو منع قبسان كرو وقويقا إيو bariga berbera iyo xeebtoo dhan dadka degan waynu naqaanaa beesha Sumeera wallahi intay degan tahay waynu ognahay sida imika ii muuqato waxaad moodaa in beel ahaan Sumeera wallahi ku socoto colaadu taasina waxaan fidnahay soo kordhin mayso anigu waxaan leeyahay taa la ilaaliyo dawladdu taa ha ilaaliso madaxdu ha filiso wixii dalka iyo dadku ay ku kala baxayaan حدين بدلكو بايو حد بالليل حد كهلا دمسترو هلا إلاليو سنادوق انتو تكلموا سوق هذا ميل جيانا وحن بتاعي سكر الميسو تعال إلالي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجهرين لما أنبه تدوينها يسوي يمد madashatan aynu ku qabanayno shirka jaraa'id ee ka socda galbeedka waqooyiga hawdka ama oogada hargeysa madax dhaqameed iyo waayeel iyo waxgarad iyo siyaasiyiin iyo dhalinyaro iyo haween waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii qadiyada maanta halkan aynu isugu nimid haddaynu qeexno waxay daaran tahay oo ay ku tacalluqdaa waxa weeye waa qarankan arrimihiisii ugu waaweynaa masiiriga ahaa waxa weeye waa dhowr qodob dhowrkaa qodob waxay kala yihiin kow dhulka xeebta waqooyiga hargeysa ee gobolka baroodijeex ee muddo dheer shacbigu uu yacni xuquuqdiisa ku la'aa
oo aan xadkiisa iyo xurmadiisa la garan waayahayn oo yacnihii maanta aynu u fadhino in la fasaxo oo lagala qaado xayiraadda waa qodob oo aynu muddo dheer u samraynay oo aynu kacdoon shacbi xataa hore uga samaynay oo kacdoonkaa shacbi u galaftay xukuumadda tan ka horreysay ee sharafta lahayd sharaf baabay dee xukuumaddaasi yeelanaysaa waxa kacdoonkaa shacbi uga kacay utumihii ugu waaweynaa bay ka mid ahayd cunsuriyadda yacni goobaha gobolka Maroodijeex inuu xeeb yeesho ha yeeshee taasi waa qodob oo waa qodobka dhulka qodobka labaad waa madax dhaqameedkii aanu nabadda u dirinay iyo inamadii dirawalintahay baabuurta u waday ee markii kacdoonka shacab ka dhacay waqooyiga goobta hadayta loo yaqaano raggii ku gurmaday madax dhaqameedka ay inamadooda qoryaha ka soo guraayay ee ilaa maanta xabisan ee loo haysto shiftanimada lagu masabiday ayaa iyadana in ooda laga qaado ay tahay waa qodobka labaad waa qodobka saddexaad ceel garde waxba ku noqon maayo maantaanu baxaya haddii alla ka dhigo gobolka saaxib iyo magaaladii madaxdiisa caasimadda berbera inaha uu daaray shirkeena shareed waa inahaas waa tii dareed wax badan baynu samirnay waxa se xusid mudan qadiyadahan isbarkan tan iyo intii ay xukuumadda madaxweyne siiraaye qabsatay dalka cidda qudha ee la cunsuriyadaynayo cidda la baabiinayo iyo cidda la wiiqayaaba subeer awal ma dhaafsiisna badanaaba iyadoo la xusi karo inay reeraha kalena nala qabaan oo walaalaheen araba lasoo aynu ognahay dhacdooyinkii meesha ka dhacay cid walba maanta sidaasaa ay dhaawac muujin u haysataa aynu u haysano Somaliland galbeed iyo bari midnaba ma bad qabto maanta maalintii madaxweyne Riyaale uu ku wareejinayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxa ku wareejinaya buu yiri dalmida iyo dadmida maanta waynu arkaynaa halkaynu marayno isaga sheekayn bayno run ahaantii waxa xusid mudan halka ka waxaynu ku cadaynaynaa haddaynu beesha subeera wallahi khaasatan maanta reerka Sacad Muuse halkan fadhiya Sacad Muuse ma kaco hadduu kacona ma fadhiisto hadduu kacona way adkaanaysaa oo aad bay u adkaanaysaa inay fadhiistaan anigu ragga qaarkii waxaan yidhi bal horta aynu hordhac ka dhigno oo aynu bal message-keena gudbinno oo aynu si dowladda sidii nidaamadu ahaan jireen waar warbaahinta inaga daaya ayaynu ku tashanay oo aynu dabal foorkafoor ula hadalno oo waxaynu tabanayno aynu xalkeeda ka raadino xukuumaddii xukuumaddii waynu ugu bari furtay oo waa si asluubaysan baynu u dhammaysan lahayn oo waxaynu u dhammaysan lahayn xafiis to xafiis oo aynu foorkafoor u hor fadhiisanno halkaasay ka dhacday maalintii hore ee 800 oo kale ay isku yimaadeen maalintii aynu halkaa isugu nimid ergaa laynoogu yimid xukuumaddu laakiinse barlamaanka qaado labada qodob ahaa midna kamay soo bixine labadiiba waa inugu bari furtay wax alla waxay ka qabatayna ma jirto go-aankeennuna wuxuu noqonayaa insha allahu bismillaahi kariim inaana waxba inoo xidhnayn wax alla waxay inoo xidhan baanaysa wadana steexa baynu u marnay sidii aynu ugu qancin lahayn wadana steexa baynu ugu garnaqsanaani maanta halka kan waxaynu ka cadaynaynaa kow haddii aynu beesha tan nahay oo aan madaxoodii ugu sarreeyey ahay madaxii guuda subeera wasdaafii guuda subeera wal waxaynu caddaynaynaa dadkaa aynu xeebta wada degno ee beelahaynu walaalaha nahay samaro iyo ciise aynu abtiyaasha nahay ee aynu gacalka nahay inaanay wax dhibaato inaga dhexayn inaanay wax utun inaga dhexaynin inaynu walaala nahay inaynu uliya diirkeed nahay ayaan halkan ka caddaynaynaa waxa kaloon caddaynaynaa dadka ay yacnihii maanta beesha tan ka dhashay ee loo yaqaano weji ku-macaashka ama danaha khaaskaa leh waxa mar walba ay xukuumaddani sida qaalibka ah soo jireen u ahayd
ay ku soo sifowday oo ay ku caan baxday in shirka aynu qabanno inagoo danaheena iyo rabitaanka deegaanadeenna iyo dadkeenna iyo qarankeenna ka hadlayna in lagaa daba hadashiiyo ku aan maqaamkaaga ahayn oo belibeli ah oo waxa lagu soo shubtay waa ka afeef dhiganaynaayo kaasi inama khuseeyo dabadayo hadduu hadlana hadalkiisu waa waraabe dharaarciyey looma baahne halkii inta yare calooshi shaqaystaha uu ka yahay laga soo siiyaha kula noqdo wuxuu inaga inoogu jawaabayo haddii uu laakiinse doonayo maanta talada reerku meel bay taallaa talada ummaddani meel bay taallaa guri bay taallaa gurigii salaadiinta subeena walba halkaa ku yaalla waa ninka wax isla hayow annaga iyaan t v-na lagu kaasoo kiraysane haad burhaanag golod lagu kaado waxaanu aad iyo aada uga xunnahay in maanta la wiiqayo nabadgelyadii oo taa aan ku leeyahay maanta ilaahay way naga xaaraantinimiyey dhiig islaam tacsi baynu u diraynaa taliyihii qaybta gobolka saaxil ee ku geeriyooday ee la dilay aad baa uga xunnahay qarankuu ka baxay qaranka ayuu ka baxay inagu inoo shaqaynayey dalkuu shaqaynayey waxase nasiib daraa halka kan wufuud baa laga diraya iyadoo madaxdii ummaddu joogto oo dhaqankii ummaddu jaranjar iyo broseska la leeyahay xukuumaddu mar walba waxay ku gabanaysaa in yari gacansaara la leedahay kuwaasina maaha qaar ka turjumaya oo masiiriya oo aniga yacni aan u xil saartayna ma aha ummadduna ay u xil saaratayna ma aha waxaa weeye hadday ceel garda tahay iyo hadday xeeb tahay labadaba dhaqdhaqaaqa maanta go-aanka habarawal wuxuu yahay kow waa in si xorriyadoodii loo soo celiya madax dhaqameedka haddii la soo dayi waayena subax noolba iyo gabal dhacaba cuqdad iyo arami ayay shacbigii ku beeraysaa qadiyadda taasi waxay dan u tahay xukuumadday dan u tahay waxay dan u tahay intay caga ku qaadatay dan u tahay in la soo daayo oo faraha laga qaadaa iyagay dan u tahay xukuumaddana nabaddu waa u dan riciyaddana waa u dan sharciga in la ilaaliyaa riciyaddana waa u dan xukuumaddana waa u dan haddaad sharcigii maanta aada laalaabteen oo sharcigii la ixtiraamayn oo qodob distooriyi ku soo arooraya gobolka maroodijeex xuduudihiisu inay noqdaan sida qaranka kaleba yahay haddii aad ixtiraami weydaan sharcigu wuxuu dhigayaa hadday qodob noqoto qodoboka distoorka ee 7% shacbigu u codeeyey wuxuu dhigayaa xuduudaha gobolada iyo degmooyinku waa 6 district ee halkan 1960kii oo loo bedelayo gobollo xuduudihii degmooyinkaasi lahaayeen maxaa ka oray meesheeda Kashmir ka dhigay maxaa Kashmir ka dhigay ee la isugu haysanaya waxa weeyaan ma noqonayso Kashmir ragna waa u maqan yahay waana xaajaraya rabbi leh waxa halka kan shirarkii horena nagala soo qayb galay siyaasigani weynaa rugcadaaga Cabdilaahi Gaaxnuug oo 1960kii laga doortay goobaha iyo dhulka waxa weeye oo ay tahay xaaladdu waa taasi inkiri mayno dareeraha kale waa idinku qoslayay haddii la yiraahdo dhulkiina maabkiisii keena ma material la isku haystaa dee dhulkii oo dhan baabad liqdaye maxaad maab inaga weydiinaysaan waxa weeye maabkiina idinka dawladoo haysta balse waxa weeye shacbigani waxa ka go'an oo qodobada habarawal maanta ka go'an oo aanu fiiro gaar u leenahay oo aanu u soo jeednaa deegaan hadday tahay iyo dad hadday tahayba in dheer baanu u leenahay geed dheer iyo geed gaabanna waa u fuulaynaa waanay naga go'an tahay in dhulkaasi sharcigii la waafajiyaa oo qodoba qodobkaasi halkaasuu yaalla qodobkaa labaad in ragga la sii daayaana waa naga go'an tahay way naga go'an tahay intaa haddaan ka soo gudbo oo aan ku soo daadego nuxurka dulucda ujeeddada tani waxay daaran tahay horta waa inahaa waxase aynu insha allahu bismillahi kariim shacbigeena ku wargelinaynaa oo aynu baaq culus u diraynaa gudayo dabadba shacbigii taladaynala lahaa taladayooda waa taa waa caddahay
qoraxday ka caddahay cidna ugu habran mayno wejigu macaash baa lagaa soo dabadiraya ugu habran mayno danaystaa loogaa soo dabadiraya ugu habran mayno u joojin mayno waa shaqaysanaynaa waxay tada noqotiyo dani noqotana mar walba waa waafaqsanaanaynaa xukuumadduna haddii ay yacnihii maanta arrintaasi si deg dega waxba uga qaban weydo karis xun iyana wax ku la waxaan ku soo ururinaya ku soo afmeeraya shacbigeenna oo aan ilaahay nooga baryaya abaaraa jira colna waa layna gelinaya col iyo abaar ilaahay bay isugu keentari maayo alla isuguma keentaro raxmaadka khayri qaba allah inoo shugo talada sana allah inoo waafajiyo kacdoonka halkaa maanta ka bilaabmay xukuumadihii horeba aynu ka dhiidhihi jirnay qadiyadaheenna allah inoo adkeeyo shacbigeena gudiye dabeedba ha loo hoggaansamo talada odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo islaadiinta oo dee maanta anigu suldaankii madaxoodiiba aan ahay madaxa meel ka sarraysoo la taabtaa ma jirti taana waa in loo hoggaansamaa shirabku waa soconayaan dhaqdhaqaaqyadu waa soconayaan yacnihii maanta ul iyo diirkeed baynu nahay nin danaysta ahina inaguma matalo qadiyad deegaan qadiyad dhul qadiyad dad midnaba inaguma matalo halkaasuu ka soo bixi shaashadahaynu ka daawan doonaa kii inta yare shidaalkaa loogu soo shubay oo carabku go-an yahay carab la baynu arki doonaa oo maalin walbay naga daba yimaado waxay hore u ahayd maalin karoonanu ka hadlaynayba waxaan idhi waa ninka dulaysan ee baahane calooshiisa sitaa muxuu madax dhaqameed ka noqday waar muxuu ummadda u qaban ninka calooshiisuu talin waaye muxuu reeriigu talin waaraha calooshooda oo taliyaa ninkay naga daba hadlaya ninka odhanaya odayaashii iyo waxgaradkii iyo sacad muuse iyo subeera walba ninka odhanaya arrimaa kaga daba dhufanaya war golaha kaalay baynu leenahay golaha noogu kaalayo bal lagu qanci waxaad sido wax lagu soo faray ma shaqaynayaan kamana shaqaynaysa halkan erga hadday noo imanayso reerku madaxa buu leeyay maanta anaa hor fadhiya waxa weeye anaa hor fadhiya iyo raggii dhigayga ahaa iyo waxgaradkii iyo culimadii iyo odayaashii qofkii maanta wax doonaya inuu nagu kordhiyo noo kaalay wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah guuliya gobonimo iska ilaahay